السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal maanta waxaan waa barnaamij la dhaho second line. second line waxa waa qaab cusub oo telefoon maarta Mareykan iyo Canada ah, number oo Mareykan iyo Canada ah ama maarta wadan kala jooga si ay u samaysan lahayd. marka insha Allah ila socdo waa ka hadda waxaan download gareynayaa appka waxa la yiraahdaa second line. Google Play Store ka ayaad ka helaysaa, kadibna number wuxuu ku siinayaa ku wici karaysa Mareykan iyo Canada free ku ah meel kasta oo aad joogtid. labada wadan uu ogol yahay. numberkaas waan soo download gareystay, waan set up gareeyay, waxaan intusayaa inuu shaqeynaa in kala waa ka ujeedaan number aan wacaya. numberka toos buu u galayaa telefoonkan aan ka isticmaalahaayana sim card kuma jirin, waa internet oo kaliya ayaad u baahan tahay. marka fiiri numberka waa ka aan wacay inuu dhacay in kale waa ka xaggaas ka arkaysan insha Allah. waa ka numberkii uu dhacay waa ka ujeedaan isla appkan ayaan ka wacay number Canada gudihiisa wuuna shaqeeyay. appkan marka waxa hadii aad maaragtay hadii aad internet haysatid wifi hadii aad haysatid free aad u isticmaali karaysaa. Mareykan iyo Canada si toos ayaad u wici karaysaa, waana laga soo wici karayaa. WhatsApp cusub aad ku furan kartaa number oo Canada ama Mareykan ayaad ku yeelanaysaa insha Allah. marka appka download gareysta qaabka hadda aan marayaan u mara insha Allah. wixii oo aad garan weysaan ila soo socodsiiye isla numberka telefoonkayga caadiga ayaan wacay isla intuu ka soo dhacaya waad u jeedaan. marka insha Allah waa wifi buu baahan yahay, wax kale u baahan yahay male. aad u haysto maaragtay maxaa la email address, emailkaada aad ku furanaysaa wuuna ku shaqeynayaa. appkan wuxuu ku fiican yahay qofka maaragtay joogo kale sida Soomaaliya oo kale, Kenya oo kale qofka joogo oo rabo dadkiisa ehelkiisa Mareykanka iyo Canada joogan inuu maaragtay si lacag la'aan ku waca uu shaqeynaa appkan. marka insha Allah download gareysta.